iyo political implication ay keeni karto siyaasad ahaan maxaa laga nasan doonaa maxaase loo darsan doonaa waxaa la tiraaxay in jahadihii la kala dayay isdhexgalkiisa interference-idii la joojin waxaa kaloo la sheegaya dhaqaalaha dabcan inagu corridor-ga ku jira inaynu ka faa'iideyno laakiin mid kale oo waxay mudaa aan lagu dareerin baa jirta analysis-ka ana isleeyahay waxay muhiim gooni u tahay inagoo ah Soomaaliya oo ah social integration innaga bulsho ahaanteenu deegaanka inta leeg oo ka weyn Soomaaliyada ka dad badan idinka inta gobolada ka timaadeen ama Somaliland ama Jubaland ama northern side ka dhaw ama southern side ka dhaw waxaa laga yaabaa in badan qoys bahaan balaynu ku farfiiqo laakiin Soomaali region ruuxa ku yimaado qoys ma noqon karo toddoba ruux aan hadda ku nimid oo toddoba nawda mid walba waxaa laga yaabaa every corner ayuu ka yimaado oo ahaan waxaan leeyahay Soomaali weyn anaga isu naqaanay idinka idima naqaanay Soomaali weyn kolka haddii taasina way kaftan marka taasoo kale waxaan ka faa'iidi kari lahayn dadka saas ah xawli siyaasadii jirtay awgeed waxay ku lahayd implication isdhexgalka bulshada ayaa inaga hortaagnaa beertii uu ka sheekeynayay hay'adda boorama ku taallay halkan beertiisa dhinaca kalena ay wadan ahayd yaa waxay tusaale u tahay dadkeenu si u kala qoqoonnaa kolka wax kale haddaan laynoo tarin oo la dhahowna aynu isu tallowno innagoo waxba la isweydiinayn yaan u malaynaya inay faa'iidada ugu weyn tahay taasaan u malaynaya inaynu ka hadalnaay biyada laftarkeeda si aynu kaga faa'iidi lahayna aynu weydiinay wabillahi tawfiiq